السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada asxaabey maantana waxay wadanaa bijiye casiriye waaye galab wanaagsan. bijiyahaasaan u quruxda badan oo saan u yaalo ayaan soo diyaariyey. sidaan u diyaariyey kaalay ila arka marka. waa kana inta waxaan kusoo shubtay digir waaye digirtii laga sameyn lahaay adiga waxa waaye nus kiilo camal 500 gram nus kiilo maayno nus kiilo waaye. biyaan la dhigaa, biyaan kusoo shubaa, biyahan kusoo shubaana waa biyo kuleel kastoo qandac ah. biyaha aan kusoo shubaayo waa biyo qandac ah. biyaan ayaa waxay la oolayaan la dhigaa, waa ku daboolaa ilaa iyo biyahan waxay la oolayaan ilaa iyo 10 saacadood waayo adiga, waayo hadda 1 saac oo subaxnimo qasaa markaan dubaana ilaa waxa waaye 11 saac oo galabnimo waa soo daboolaa hadda kabacdi arkaynaa isku soo noqodkaynay waxaan sida u sameynayo kale. waa kana bijiyahan iyo biyihii si fiican ugu soo qasmay saan uu noqday. saas ayay qolofta dhan uga fiiqmaysaa iyo qashirka korka waxa ka saaran. hadda waxaan sameynaa marka waan soo nadiifinayaa waxaan usoo qaadanayaa mashiinka yaraan usoo qaadanayaa, waan ku shubayaa wax yar ayaan rabaa inaan ku shiido si oo waxa kor ka saara qashinka kor ka saara uga fuqo. maasha allah waa kana saan kusoo baxay. digsiyaan kusoo shubay, si fiican aan usoo dhaqay maasha allah ilaa 20 daqiiqo ka badan la dhaqay. isla mashiinka kusoo shubaa hadda. isla mashiinka kusoo shubaa. markii aan kusoo shubay isla mashiinkaas oon kusoo wada shubo ayaa waxaan kaloo ku darsanayaa 1 xabo basal oo soo googooyay iyo 5 xabo oo adiga tuun ah aan iskugu soo shubaa. waan kusoo wax yar oo biyahan kusoo daraa waa soo shiidaa marka fiican u soo shiidaya. bijiyaha waxaa la rabaa inuu daqiiq noqdo, si fiican u soo shiidmo. waa kana waa soo shiidmay saanoo noqday, saanoo kusoo baxay. waxaan kusoo darsanaa qaandada yariista hoshaha lagula shubto sokorta oo banki powder ah. waxaan kaloo kusoo darsanaa wax yar oo maraq digaag ah. haddaad rabtid haddaan rabin waa iska dhaafi kartaa, cusbaa ku darsan kartaa, laakiin ani wax yar oo maraq digaaga kusoo darsaday soo aad u maceyna markaa ku darsatid. wax yaroo huruud ah iyo wax yaroo basbaaska oo basbaas gaduudka camal ah oo wax yar ah kusoo darsanaa hal qaandada foodeeda ah. intaas si fiican iskugu qasaa. si fiican markaan usoo qaso hadda waxaan sameysanaynaa birtii ayaa dabka soo saaranaynaa. birtii ayaa dabka soo saartay, saliid aan kusoo shubtay, waa iisoo kululaatay saliidda si fiican ayay iigu soo kululaatay. dabkana dhexdhexaan ka dhigo, fuulka ma dhigin dabka. haddaad u dheereysid korna waa ka gubanaa, gudahana ciiriin uu ka ahaanaya, sidiisu ka ahaanaa. marka dabka waa u gaabiyey oo dhexdhexaan uga dhigay, gaabna kama dhigin dheerna kama dhigin. laakiin marka hore saliidda waa soo kululeeyo dabka waan usoo dheereeyay.
waa soo gedgedinaa hadda dhinacyada usoo gedgedinayaa gaduud fiican uu soo noqonaa markaas. waa kana maasha allah saanu kusoo baxay gaduudkaanu noqday. hadda waan kasoo bixinaa qaybtii koowaad waan kasoo bixinaa. markii aan soo dhameeyo oo soo wada dubo ayaan isku soo noqonaynaa markaas, iyo siduu noogu soo baxo ayaan arkaynaa hadda. waa kana saanu kusoo baxay, waa soo dhameeyey bijiya macal basbaaskiisa. maasha allah lagama sheekay karo soo kusoo baxay, siduu noqday, siduu u qurux badan yahay. maasha allah waa kaasa dhexdana saasuu ka yahay. waa ku mahadsantii daawashada daawataan videogan. please subscribe-ka ii saara, like-na ii dhaha, share-tana igu qabta. waa mahadsantihiin.